madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asbuucan soo hoyay guulo waaweyn oo waxtar u leh dalka laakiin se dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wajahayaa taageero la'aan shacab ayadoo aysan jirin dareen shacab madaxweynaha Soomaaliya ayaan seexan habeen iyo maalin kaasoo halgan ugu jira sidii ay Soomaaliya u noqon lahayd dal isku filan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan wax sahlan ma aha in 10 maalin gudaheed uu Xasan Sheekh Soomaaliya ku daray dalada bulshada bariga Afrika dhinaca kalena uu isla 10kaas maalin ku guuleystay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka oo saarnayd 32 sano marka intaas oo qodob la eego madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu mudan yahay taageero iyo dhiirigelin lala garab istaago dawladda uu hogaamiyo si loo gaaro guulo kale oo waxtar u leh dalka sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxay maanta haystaan madaxweyne dhiiran oo waayo arag ah kaasoo maanta uga baahan hiil iyo taageero oo kaliya dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadii uu helo taageero shacab waxa la aaminsan yahay inuu dalka dhaafin doono kooxda Al-Shabaab sidoo kale madaxweynaha waxa la gudboon inuu isbedel ku sameeyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada oo gudan la waajibaadkooda shaqo kuwaas oo intooda badan mushaarka oo kaliya iska qaata laakiin si aan lahayn wax kale oo tayo ah oo dalka caawin karta dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa ka go'an inuu dhameystiro dastuurka Soomaaliya oo muddo dheer qabyo ahaa laakiin se wuxuu wajahayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya siyaasiyiin dano gaar ah leh oo xilligii ay xukunka joogeen ku fashilmay inay dhameystiraan dastuurka sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya inuu dalku yeesho hanaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayadoo laga guurayo nidaamkii hore waxaana jira siyaasiyiin badan oo ka walaacsan qorshaha Xasan Sheekh ayagoo muujinaya cabsi federaal ah iyo inay awoodda dalku hal qof gacanta u gasho sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya tan iyo markii uu xukunka ku soo laabtay wuxuu si degdeg ah u bilaabay duulaanka lagu soo afjarayo kooxaha ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya wuxuuna galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaal ballaaran oo deegaano iyo degmooyin badan looga saaray kooxda argagixisada ah ayadoo uu dhinaca kalena dhawaan bilaaban doono wajigii labaad ee dalka lagu dhaafin lahaa kooxahan arxalnaawayaasha ah ee 15 sano gumaadayay shacabka Soomaaliyeed sidoo kale asbuuca nagu soo aadan ayaa la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo ansixinta heshiiskii golaha wadatashiga qaran oo lagu meelmarin doono inuu dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaana si weyn magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uga socda diyaar garow xoogan oo lagu gogol xaarayo sidii uu baarlamaanka Soomaaliya u meelmarin lahaa mowduucan dhinaca kalena filla Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay hesho taageerada maamul goboleedyada taasoo ka dhigan inuu dhaqangal ku dhow yahay damaca filla Soomaaliya intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya